Waxaan dugsin carar ka yidhi hal orodka ugu jirnaa waa sida aan ugu guulaysan lahayn hannaanka nolosha nagu hareeraysan, innagoo jar dheer iyo mid gaaban u fuulno ka midho dhalinta aayaha dambe. Kubadda cagta waa minad kale oo waayadii tagay ka mid noqotay shaqooyinka ay muruqmaalka ay qabtaan. Dhaqaalaha uu ka sameeyo ayaa laga gartaa inta badan hadba dhaqdhaqaaqiisa, sida gawaarida uu sito, dharka uu xirto iyo waxyaabaha la midka ah. Xasan Maxamed Aadan Santos, haddii aad daawatay MCC, waana filayaa in badan aad ku raaxaysatay xirfadiisa mucjisada ah ee xiddigan. Haddana waa mid ka mid ah ciyaartoyda diyaar ku ah inuu la tartamo muruqweynta dunida sida Lionel Messi, Ronaldo, Neymar iyo Kylian Mbappe. Waxa uu xarunta tababarka iyo garoomada ku yimaadaa Moto RX noocii ugu dambeeyay ah, taas oo ah mid aad u qurux badan. Ka ilaalisiga kubadda kuwa ka soo horjeeda waa wax uu ku caan yahay, balse xirfadiisa mootada iyo xakameyntiisa waa wax uu kaga duwan yahay ciyaartoyda kale ee ka ciyaara horyaalka Soomaaliya Premier League. Maxaa ku dhiirigeliyay in Xasan Santos uu soo iibsado mooto lugaaley? Niyo horta waxyaabaha oo caalashaan aan u gataa waxay tahay tiriina subax oo kale laga rabaa. Marmar qaar bajaaja soo saaranahay wadada cariir naqanayso jam, haddana roobkiyo zaid u da'ay, dhulalkiyo roob gooyay, mooto asaaranta bajaaj oo kale xaafadii intay ka soo wareegayso waqtiga dhamaanayo. Marka tan meelihii biyihii jajabiyay geeseedoo kale way maraysaa si almiitada ayuu ugu imaado. Waxyaabahaas marka igu dhaliyay inaan soo gato oo almiitada aan ku aado iyo marka ciyaar leeyahay kale ciyaarta aan ku tago saasa u soo iibsaday. Wax walba bilow ah waxay leeyihiin dhibaato hor leh. Haddaba Xasan Santos maxay tahay dhibaatada uu kala kulmay mootada? Mootada tankay tan ugu horeyso mid waxa wadi jiro Falcon ay dhahayaan oo tan ka duwan. midaas awooday midaas marka waxay taasi tan waxay kala duwan yihiin. taas waxa waaye halisteeda badan, shilalkeeda badan. marka tan waxa waaye saacadi calashaan u wadaysid waaye automatic waaye. marka adib haystid oo kale share laha caadi waaye calashaan way ku soconaysaa. laakiin marka deysidoo kaleeto waxa waaye way ku istaagaysaa. laakiin midaas oo kale marka share lihi cabaar haysid way kula fakanaysaa marka halistaas marka uu baqo iska dhaafay kadib tana marka oo hadda oo aydan casri ah marka soo iibsaday. Haddaba mootada uu wato laacibkan waa mid ka duwan mootooyin kale ee wataan xidigaha horyaalka Soomaaliya Premier League ka ciyaara. inkastoo mootooyin fara badan ay jiraan oo magacyo kala duwan ay leeyihiin, bajaajo kale 2-3 camal ay u kala baxdaa, RE, TV, TVS iyo Bajio. mootooyinka yararkana Facebook, Falcon iyo Hero mid ay dhahaan jirto. tan marka waxa la lahaa magaceeda RX la lahaa. mootooyinka hadda soo baxa automaticada oo hadda soo baxeen waa casriga. kuwa waxa jiraan jaajar ah ayakana kuwaas magacooda inkastoo aan ka siinin midab ahaan tan ay isku ismetelayaan, laakiin tan shidaal waaye. muddooyinka ugu dambeeyay ciyaartoyda horyaalka Soomaaliya Premier League ka ciyaarta ayaa ku soo badanayay inay wataan gawaari noocyadu kala duwan, iyagoona tababarka iyo ciyaarta ay leeyihiin garoonka ay ku yimaadaan. Xasan Santos ayaa ka mid noqday ciyaartoyda wata mootooyinka noocyada ugu dambeeyay ah. Naadira inaad aragto ciyaariyahan ka ciyaara horyaalka Soomaaliya Premier League oo wata mooto lugaaley ah. Xasan Santos ayaa noqday ciyaariyahankii ugu horeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League ka ciyaara oo wata mootada lugaaleyda ah, taasoo ku yimaada garoonka. Abdulrashiid Abuukar Naani, Gol FM, magaalada Muqdisho.